dacwad garsoorku dhexdhexaad ka yahay ma ahayn dacwadu maxkamadda dhibane ahayd oo tiri ana wax laga qoray marka ninkaasi muu helin garsoor cadaalad muu helin wasiirkii arrimaha gudaha maxkamadda dhexdeeda wuxuu ku yiri awood baa leeyahay buu yiri awood buu sheegtay wasiirka arrimaha guduhu marka meesha power abuse baa ka dhacay meesha iyo awood sheegasho xagga awoodda qaranka la sheeganayo marka dacwad sax oo cadaalad meesha kama dhicin waanu iskaga baxnay anagu markaan arnay sida afduubka xeerkii saxaafadda xitaa ma aqoonsana oo waa la diiday xeerkii waxa la sitaa xeerkii Soomaaliya ee Penal Code-kii xeerka saxaafadda wuxuu dhigayaa in lagu qaado arrimaha saxaafadda xeerka saxaafadda lagu qaado marka waxaanu arnay in afduub tahay oo arrintu dacwadda aan cadaalad ahayn baan arnay waanu ka baxnay afduubkaas aan dacwad ku socotaa waxa weeye annagu waxaan u gudbinay hay'adaha internationalka ee human rights waxa bismillaahir rahiim qareenka labaad ee dacwad qareen Cusmaan Askar Maxamed qareenka labaad ee dacwadda waxa weeyaan waxaanu ka cabanaynaa garsooraha dacwadda haya dhexdhexaad kama aha wuxuu u ciiray xagga xafiiska xiraalinta iyo wasiirada awoodooda ayuu ciiray marka waxaanu leenahay taa waanu ka tashan doonaa halkii processka aan uga gudbi lahayn sida sababta darteed baan uga soo baxnay imika waxa weeyaan procedure ahaan iyo nidaam ahaan garsooraha ayaanu ka cabanaynaa nidaamkii waayo caburin buu nagu sameeyay aamusaha ka hadlina ma taasuna difaac ma noqonayso qolada wargeyska haatu ma soo bandhigeen cadeymaha mas'uuliyiinta ay eedeeyeen iyagu maya wali cadeymo wax cid dhibana ka ahoo halkan la keenay oo haatu dhibana ka ahoo haysataa maba jirtaba oo xafiis xiraalintu 11 qodob oo eeda ayuu keenay 11 ka qof ee eedaha laba wasiir baa la keenay cid kale lama keenin waxna la gudban barnaamijkan maraynaa abil baanu ka qaadanaynaa dariiqa sharci baanu maraynaa waxa weeyaan waxaan u gudbaynaa maamulka ka sareeya maxkamadda rafcaanka maxkamadda sare cabashaan u gudbinaynaa laakiin garsoorahan mid aan ugu noqonayno dacwadda maaha xagee wax marayaan xagee ma kala keen imka dacwadda socota waa xidhan yihiin damaanad baa laga noqday xidhan yihiin ديار متيدين اوكي بسم الله الرحمن الرحيم هدانا انغو xarunta xuquuqul insaanka kiiskan maanta loo haysto wargeyska Haatuf iyo mas'uuliyiintiisa sida gudoomiyaha iyo tafatiraha oo imaka maxkamadda ay xidhay waxaan marka hore cambaaraynaynaa aanu cod dheer ku sheegaynaa in la baarmaray sharciyadii saxaafadda waxay lahayd xeer gaar ah oo xeer number 27/2004 xeerka saxaafadda lama dabaqin waxa lagu soo oogay wargeyska iyo mas'uuliyiintiisa waxa loo adeegsaday xeerka habka ciqaabta oo ah qayr dastuurku wuxuu mamnuucay dastuurka qodobkiisa 130 faqradiisa shanaad waxay sheegaysaa xeerarkii hore waxa lagaga dhaqmaya hadii aanay ka hor imaneyn xorriyaadka iyo xuquuqiyaadka asaasiga maadaama aanu la jaan qaadayn xeerka habka ciqaabtu ama xeerka ciqaabtu aanu la jaan qaadayn xorriyaadka iyo xuquuqiyaadka asaasiga waxaanu sheegaynaa inaan lagu dabaqi karin ama aan loo adeegsan karin saxaafadda xeerkaas isla markaana xeerka number 27/2004 waa xeer dhaqangala baarlamaanku ansixiyeen isla markaana ay madaxweynuhu saxeexay xeer gaar ah ayay leedahay saxaafaddu xeerka gaarka in la ignore gareeyo oo indhaha la iska qabto oo xeer guud la dabaqo waxaanu aragnaa sharci darro waxaanu maxkamadda u soo jeedinaa inay hanaankeedii ku soo noqoto in procedure iyo dacwadda fair loo noqdo in fair hearing ay meesha ka dhacdo oo labada daraf la dhageysto si isku mid loo dhageysto aan midna la caburin midna aan sida sharcigu dhigayo midna aan la sii deynin marka waxaanu u soo jeedinaa maxkamadda inay ka laabato in adeegsiga xeerka criminal xeerka habka ciqaabta ay dabaqdana xeerka saxaafadda waxa kale oo maxkamadda soo jeedinaa inay muujiso madax banaani iyo inay ku dhiirato in garsoorku noqdo mid ka madax banaan xukuumadda iyo dadka madaxda ee meesha imanaya. Assalaamu calaykum.